wasiirka wasaaradda waxbarashada barbaarinta iyo sayniska jamhuuriyadda Soomaaliland Professor Ismaaciil Ducaale Yuusuf oo uu helidayo gudoomiyaha xafiiska imtixaamaadka qaranka Soomaaliland Daawud Axmed Faarax iyo saraakiil kale oo ka tirsan wasaaradda waxbarashada ayaa maanta gelikii dambe u qabtay wacyigelin arrimaha imtixaamaadka shahaadiga ee sanad dugsiyeedka 2025-2026 kulankan wacyigelinta ayaa loo qabtay ardayda fasalada afraad ee dugsiga sare iyo fasalada sideedaad ee dugsiga hoose dhexe kulankan wacyigelinta ayaa lagu qabtay jaamacadda Burco ugu horeyntii waxa halkaasi ka hadlay oo ka warbixiyay gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Togdheer agaasimaha waaxda waxbarashada asaasiga ah ee wasaaradda waxbarashada gudoomiyaha jaamacadda Burco oo soo dhaweyntan qaabilsanaa iyo barsaab ku xigeenka gobolka Togdheer kuwaasi oo ardayda dardaaran kala duwan halkaas uga jeediyay ama magaalada Burco ama reer Burco ama reer Togdheer waa asadka ay leeyihiin halkani marka bacdaan aan halkoodii idin diyaarinay intaas oo aan hadalka ku soo dhaweynaya anigu waxaan leeyahay runtii ka reer Togdheer ahaan ama ka Burco ahaan sharafay galabta inoo tahay inaynu madashan furan aynu ka waxbarasho ahaan aynu isugu nimaadno waa baxdii waxbarashada oo isu dhan weeye ilaa heer wasiir ilaa gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka waxaynu guud ahaan soo dhaweynaynaa madaxdeena inoo yimi safarka dheer inoo soo galay oo runtii juhdi badan ku bixinayay muddadii ugu dambeysay in ay ardayda imtixaanaadka shahaadiga galayay ay soo arkaan qalbiga u soo dejiyaan la soo dardaarmaan xaqiiqada imtixaanka ay uga soo warramaan intaasay u socdaan waynu soo dhaweynaynaa waanaynu uga mahadnaqaynaa ayaynu ku dhagaysan doonaa wasiir iyo gudoomiye halkan waxaa maanta jooga ardayda imtixaanka shahaadiga galayay guud ahaan ardayda imtixaanka noo fadhiisanaysa dugsiga dhexe waa 4182 ayaa imtixaanka dugsiga dhexe ama eedka loo gelaya dugsiga sare waxa noo fadhiisanaya 2736 arday ayaa noo fadhiisanaya ardaydaas maanta sharaf ayay u tahay in ay halkan iyo madashan aad kula kulantaan ardayda qaar badan baa hadda marka halkan ay yiri kaliya anagu waxaan ugu fiirinaa mas'uuliyiinteeda aragno wasiirkayga aragno live u aragno daawooyin badan aan maqlaynayna aanu aragno leeyahay waxa idin hor joogaan maanta waynu soo dhaweynaynaa kulay wayno dabaynayaan in madaxdii iyo kelmadihii ay nooranayeen dardaarankii anigu waxaan uga marakacayaa maadaama gobolka Togdheer maanta sharaf bay tahay qaabka ardaydu aamusan iyo nidaamka ay ku fadhiyaan faan bay tahay waan ku faanayaa kulay qoladii reerkiisa waxaan leeyahay gudoomiye wada aragta ardaydeedii imtixaanka markay galaan kulay safiyada ka horeysa tacliinta ubadkii baatiin lagu tabcayay waalidkii weydii barbaariyay macallinkii weydii barbaariyay waxa la yidhi waxa la ka qaadaya marka kalsooni muujiya annaguna way ilaalinaynaa bilayska waa la shaqeynaa maalinta imtixaanka wiiga ma fariisano wax badan baan idin oran lahaa kelmadda ma hadnaqay qolada wasiir gudoomiyaha xafiiska imtixaamaadka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Daawud Axmed Faarax oo munaasabadaasi khudbad dheer oo dhinacyo badan ardayda uga diyaar garoobay hawlaha imtixaamaadka shahaadiga halkaasi ka warbixiyay waxaana hadaladiisa ka mid ahaa marka waxaan ka wadaa instruction-ku waa muhiim qodob waa ka inaad mar walba instruction-kaaga eegtid waxa kale oo soo baxa multiple choice marka ardaydu ka shaqeynayso waxa laga yaabaa kuwa imtixaan waliba wato 20 marks oo multiple choice multiple choice kaas waxa loogu talagalay waa goobo gelidii ardaydu waxaan markhaati ka ah oo u soo taagnaa arday waa 20 su'aalood uu saxibadi waxa soo galay kalaaskii Iblis imtixaankii GT ka xambaarsan wixii dambe da shaydaanku waday ila arday marka ay kalsoonidii waa kalsooni waxaan uga socdaa kalsooni darraduna ardaydu waxyaasi 20 kaaba uu heli lahaa markiskooga marka taasina waxa weeye waxaan ka wadaa ardayda qodob waxa weeye waa ka ma taqaanaan idin sheegay oo ah inaan warqadaha la tirin oo awaamirta raacin midina waxa weeye ardayga inay kalsooni darro ku dhacdo kalsooni darraduna waa arrin aad iyo aad ma taqaana u khatara anna waxaan hubaa
hadduu ilaahay yidhaahdo ardaygu ilaahay tala saarto waalidkana baari u noqdo waalidku waa badan yihiin macallimiintu waa ka mid iyo waalidkii asalka ahaa intaa oo aroort walba markaad soo baxaysa aad waalidkaaga madaxa ka soo dhukatid adkaarta badsatid inta kale way wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta sayniska jamhuuriyadda Soomaaliland Professor Ismaaciil Ducaale Yuusuf ayaa tilmaamay sidii loo ilaalin lahaa tayada iyo habsami socodka howlaha waxbarashada ay ka mid yihiin arrimaha imtixaanaadka shahaadiga runtii farxad bay tahay inaan idin kala soo qayb galo maanta kulankan aynu u aamudnay ama aynu u qabanaynay xafiiska imtixaanaadka iyo Daawud inaad wixii su'aalaada ee aad jeceshiin inaad ka bogataan isagoo hortiina taagan hadalkaygu iska kooban yahay waxa ka mid ahaa kalsooni darrada uu Daawud ka hadlay oo ilmigu inuu isku kalsoonaado oo wixii uu soo bartay wax aan lahayn laga qaadi maayo wixii uu baa imtixaankana laga weydiin doonaa isla markaana waxa muhiim ah waxaan horta qishka la yiraahdo khatartiisa in la isla fahmo sida Daawud sheegay horta berito waxaad ogtihiin inaad noqonaysaan hogaamiyayaashii waddankan berito waxaad arkaysaa kii qishka sameynaya markaad ogaato inuu madaxweynaha iyo dibad maqli karaysaa ila wadba inuu ku qishay ama inantii qishka sameysay berito noqoto madaxweyne kabadii waxa halkaasi ardaydii ka qayb gashay kulankani su'aalo kala duwan ka weydiiyeen xafiiska imtixaanaadka qaranka Soomaaliland Cabdirasaaq Cabdullaahi Sheekh Aadan warbaahinta qaranka magaalada Burco.